kulan laba maalmood soconayay ayaa lagu soo afmeeray kulamo taxane ahaa muddo sanad iyo badh ah oo u dhaxeeyay axsaabta siyaasadda ee dowladda deegaanka Soomaalida. Wacad sharafeed ayaa la saxiixay kadib markii uu ku soo biiray xisbiga EPP ee talada haya oo ka cagajiidayay. Kulamadan ayaa waxaa dabada ka riixaysay soo qabanqaabinaysay hay'adda CR. warmurtiyeed ay soo saartay hay'adda CR ayaa waxaa ku jiray qodobo aan ka mid ahayn qodobadii la isla fahmay. mar labaad ayay hay'adda CR la wadaagtay warbaahinta warmurtiyeed ka kooban qodobadii la isla afkartay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. magacaygu waa Cabdullaahi Saahid oo maaragtay u ah la taliye hay'adda CR ama Conciliation Resources muddo laba cisho waxaan soo wadnay shirkii axsaabta ama interpolitical dialogue la dhihi jiray oo muddo soo socday sessionkiisii 11aad ayuu ahaa kani sabtidii aan bilaabnay maantaan soo gabagabaynay shirka 5 xisbi ayaa maaragtay ka soo qayb galay PP NLF FAB iyo Zema waxaa intaa weheliyay odayaasha golaha midnimada iyo nabadgeliyada oo qayb ka ahaa looguna yeeray inay makhraati ka noqdaan wacad sharafeedkii ay axsaabtu qorteen muddada wada hadalkoodu soo socday. horta waxaan u mahad celinayaa maartay baahda warbaahinta. labo warmutiyeedkan wuxuu ku saabsan yahay shirkii axsaabta u socday labadii maalmood maanta iyo shalay sabtidii iyo xaddii oo ku saabsanaa lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo in la saxiixo heshiiskii axsaabtu ay soo wada daadihinayeen muddada sanadkii iyo barka ahaa odayaashuna makhraatiga ka ahaayeen odayaasha golaha midnimada iyo nabadgeliyada iyo guddiga doorashooyinka NEPE ay goobjoogayaal labaduba ka ahaayeen. warmurtiyeedka isaga ah wuxuu ka koobnaa 9 qodob oo maaragtay isafgarad ahaa oo danaha maaragtay deegaanka ku saabsanaa. qodobka koobaad warmurtiyeedkaas wuxuu ahaa midaynta aragtida siyaasadeed ee axsaabta ee ku wajahan deegaanka. labo xoojinta nabadgeliyada dowlad deegaanka ayadana qodob kale ahaa. qodobka labaad wuxuu ahaa qodobka saddexaad wuxuu ahaa in golaha nabaddu iyo midnimadu ay dhexdhexaad u noqdaan axsaabta noqdaanna sidoo kale marjiciyad loo noqdo khilaaf kasta oo yimaada. qodobka afraad wuxuu dhigayaa in axsaabta siyaasadeed ee deegaanka ay weheliyaan odayaasha ama golaha midnimo iyo nabadgeliyadu ay xuquuqda deegaanka kaga maqan federaalka si wada jira u raadiyaan. 5 wuxuu ahaa qodobka 5aad in danta deegaanka laga hormariyo danta axsaabta iyo danaha shakhsiga ah. 6 wada tashi golaha nabaddu iyo midnimadu inuu la sameeyo axsaabta deegaanka kala duwan sidoo kale inuu wada tashiga la sameeyo xukuumadda iyo maaragtay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida. 8 ama qodobka 8aad wuxuu dhigayaa isaguna in la xoojiyo xafiiska NEPE ee deegaanka oo ay isku raaceen maaragtay axsaabtu in la curyaamiyay marka si maaragtay curyaaminta looga saaro in la xoojiyo la tayeeyo oo maaragtay kor loo qaado. 9 oo qodobka ugu dambeeya wuxuu ahaa in shirka axsaabta noocan oo kala ah la joogteeyo ayuu ahaa. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum.